kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinkugu soo gudbino wararka iyo warbixinada ku saabsan dadaalada uu howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM uu ku taageero bulshada isaga oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. qodobada ugu waaweyn barnaamijkeenana waxa ka mid ah AMISOM oo xustay maalinta haweenka adduunka iyadoo lagu maamusay horumarka ay haweenka Soomaaliyeed gaareen. howlgalka midowga Afrika oo hub ku wareejiyay xukuumadda federaalka ah. AMISOM oo tababar u furtay saraakiil boolis ah. maalinta haweenka adduunka ayaa ah maalin caalami ah oo lagu maamuso guulaha ay haweenku ka gaareen bulshada dhexdeeda, gaar ahaan dhaqaalaha, dhaqanka iyo siyaasadda, iyadoo sidoo kalena loogu talagalay in lagu weyneeyo guud ahaanba haweenka caalamka. mowduuca sanadkan ee AMISOM ayaa ah duni la siman yahay ayaa ah duni awood leh. intii lagu guda jiray munaasabadda maalinta haweenka ee adduunka ayaa AMISOM waxa ay bogaadiyeen doorka ay haweenku ka ciyaaraan horumarinta dalkooda, iyadoo sidoo kalena la maamuusayo doorkooda ku aadan qaybaha bulshada. mid ka mid ah waa howlgallada nabad ilaalinta oo ka mid ah meelaha ay dumarku saamaynta wanaagsan ku yeesheen, halkaas oo ay gacan ka geystaan labada door ee nabadeynta iyo ilaalinta xuquuqda haweenka. inkastoo haweenku ay wajahayaan caqabado badan inta ay ku guda jiraan hawsha nabadeynta iyo dib-u-dhiska dalka Soomaaliya, haddana waxaa jira guulo badan oo laga gaaray awoodsiinta haweenka. waxaa la helay saami qaybsi nabadeed oo ay suurtagelisay AMISOM iyadoo la kaashanaysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka. The International Women's Day in Somalia is an important opportunity to build peace and stability in Somalia. And apart from that, because women are aware that at the end of the day, they are the ones who bear the brunt of whatever conflict there are, women are particularly interested in peace. So they are a galvanizing element for peace building in Somalia. in ka badan kala barobar tirada guud ee shacabka Soomaaliyeed ayaa celcelis ahaan waxa la sheegaa inay dumar yihiin, iyadoo tirada guud ee dalkana lagu qiyaaso inay tahay 15 milyan oo qof. Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa la sheegaa in heerka dhalmadu uu aad u sareeyo, iyadoo celcelis ahaan la sheego in qoyskiiba ay dhalaan 6 carruur ah. waddan ay sinaanta ragga iyo dumarku ay aad u hooseyso ayaa waxaa lagu qasban yahay in la hubiyo in haween badani ay ka mid noqdaan hogaamiyaasha dalkaasi si ay u caawiyaan haweenka kale ee bulshada Soomaaliyeed. AMISOM ayaa iyadoo la shaqaynaysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay maalgelinaysaa wax soo saarka gabdhaha, iyadoo meesha ka saaraysa caqabadaha ka hortaagan nabad dhisidda iyo hubinta in sinaanta jinsiga ee qoondada caalamiga ah ee la fuliyay. waa qorshe aad u wanaagsan oo yool fiican leh. horumarinta sinaanta jinsiga ayaa aasaas u ah nabad waarta. sinaanta labada jinsi, ilaalinta haweenka iyo ka qaybgalkooduba waxa ay qayb weyn ka yihiin istiraatiijiyadda AMISOM. AMISOM ayaa iyadoo kaashanaysa dawladda federaalka ah waxa ay ogaadeen in siyaasadda dalka ee jinsigu ay sii dheeraynayso in jinsiga lagu daro dhinaca nabadeynta iyo geedi socodka dib u dhiska Soomaaliya. Empowering women really is half the way gone in the peace building and the peace consolidation. So in the case of Somalia, where we still are at war, in the case of Somalia, where extremism and intolerance is becoming a norm by these extremist groups, women can preach solidarity, can preach understanding, and women can inspire those values. haddii kale Ingiriista ku sheegaysidna waa one person one vote. Soomaaliya ayaa dib u eegaysa dastuurka ka hor inta aan la qabanin doorashada guud ee dalka, taas oo lagu wado inay dhacdo sanadka soo socda. doorashada soo socota oo noqon doonta qof iyo cod. power sharing ka markaad leedahay hooyoy. AMISOM ayaa martigelinaysa haween badan oo ka kala socda ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed si aragti wax ku ool ah ay ugu biiriyaan geedi socodka dib u eegista dastuurka dalka Soomaaliya. It was very important for them to know about it, to know
some of the gender provisions that were discussing women rights in terms of participation, in terms of equality and access to opportunities. So they were very happy to learn about that, and they are also very eager to contribute to make sure that women representation, particularly in the political process, will be written in the constitution and not limited to 30%. They really believe in having a 50% representation. So they are aware of their role and they are ready to support the government of Somalia. wakiilo ka socda wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya ayaa kala hadlay ururada dhalinyarada, ururada haweenka iyo warbaahinta mowduucyada qaybsiga kheyraadka, federaaleynta, doorashooyinka, nidaamka cadaaladda, doorashooyinka iyo nidaamka garsoorka. dastuurka waxa review lagu sameeyay codka koowaad ilaa codka sagaalaad reviewgiisa uu dhamaaday waxa dhiman public consultation ila sameeyo oo dadka talooyinka dadka lagu soo daro way bilaaban doontaa soon gobol kasta oo ka dhici doontaa muqdishona way ka dhici doontaa soo dumarku waxay qayb ka yihiin dadka oo codkooda lagu darayo oo wacyigelinta ka qayb galay la talintana ka qayb gali doono maantana waxay qayb ka mid ahayd inaan gabdhaha brief update aan siino in wacyigelin ay qayb ka mid wacyigelinta ay ahayd in si hadhow marka la talinta imaato ra'yigooda iyo commentiyada dastuurka ay ugu darsadaan 5 jabtara dastuurka dhiman oo wali loo saan review lagu sameeyay as soon as possible ayadana within 2019 review lagu sameyn doona waxyaabo kale maan dumarka la hadlin waxay ahayd federalismka wadan federalism waay dumarka inay fahmaan federalismka inay qayb ka noqdaan xisbiyada wax soo dhan. Ilhaan Maxamed Xasan waxay la shaqaynaysaa ururada haweenka ee bulshada maxalliga ah waxaana ay ka qayb qaadataa kulamada lagu abuurayo hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya. waxaan rabnaa inay ka muuqdaan kootada haweenka in lagu cadeeyo xeerka ciqaabta kufsiga in lagu cadeeyo xuquuqda haweenka ee siyaasadda ka qayb galkooda in dastuurka ku dhex cadaato in haweenku ay ka qayb gali karaan saddexda qaybood ee dawladda fulinta iyo garsoorka iyo golaha baarlamaanku hadda waa haysana laakiin waxaan naga maqan garsoorka iyo fulinta oo aan ku yarnahay waxaas dhan ma doonayna inay ku cadaadaan dastuurka. Istaraatiijiyadda ilaalinta jinsiga ee AMISOM ayaa ah kor u qaadista wadahadalka sinaanta jinsiga ee dhalinyarada. Ana Maxamed Cali waa ardayad dhawaan qalin jabisay waxaana ay sheegtay inay hadda si wanaagsan u fahamsan tahay sida ay mustaqbalka bulshadeeda iyo keedaba u bedeli karto. waan first time in waxay tahay in urur looga hadlayo doorka haweenka ay ku leeyihiin dastuurka Soomaaliyeed first time in waxay wili isi tahay dastuurka Soomaaliyeed hatta waa maqli jiray waana buugaag yar wax lagu qoran waa arkay laakiin doorka aan ka leeyahay first time ita in aan arko xuquuq in aan ku leeyahay wadankayga in aan ahay gabar Soomaaliyeed gender balance dhinaca dumarka markii loo fiirso in ay boos weyn oo gaga jiraan bulshada. Maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu sheegay inay sare u kacday tirada haweenka siyaasadda soo galaya. Caasho Maxamed Khaliif waa wasiirka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska waxaana ay qorsheynaysaa inay kor u qaaddo xirfadeeda siyaasadda ilaa heerka ugu sarreeya. sa ognahay gobolada hadda isteediya Soomaaliya u qaybsantay maamul goboleedyo ilaa 5 Puntland, Somaliland iyo Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabelle oo anigu aan ka tirsanahay waxay sameynayaan dareen lixaad ee ku dhiirigelinayaan haweenka inay siyaasadda ka qayb noqdaan. waxaan ognahay hadda Soomaaliya gaar ahaan Hirshabelle waxaan leenahay gabadhii ugu horeysay oo mayor ah oo Soomaaliya aysan ka dhicin Soomaaliya Hirshabelle sameysay roolkaas. sidoo kale baarlamaanka Hirshabelle waxa ku jiro speaker of parliamentiga kan labaad waxa waaye gabar waaye afayeenka baarlamaanka oo labaad waa gabar. Awoodsiinta dhaqaale ayaa udub dhaxaad u ah inay haweenku si firfircoon gacan uga geystaan qoysaskooda sida ay sheegtay Faadima Aadan Kateela oo ah u ololeeya amaba geefana ka tirsan haweenka deegaanada miyiga. wax badan baan u qabanaa haweenka horumarin baan u sameynay waxa la dhahaa barnaamijyo waxaan u sameynay tiro badan oo mashaariic yar aan u diyaarinay oo ay farshaxanada iyo adeegyada haween dadka ay waxyaabo u baahan yihiin baahida haween waxaan u sameynay hay'adii waxaan la hoos galnay qolooyin baan la hoos galnay waxaan u sameynay faranjeeraan u diyaarinay waxaan u diyaarinay meelo foornooyin ah waxaan u diyaarinay meelaha cilaanka lagu saaro meelaha haweenka lagu qurxiyo meelo badan oo haweenka 25 10 saac amal ah ayaan u sameynay oo ay shirkado yar ka sameysteen shirkadahaas oo gabdhaha ay biilkooda ka raadsadaan markaan wixii ay sameysteen waxay sameysteen ayuu lacag ay watay sameysteen oo 6 xaafadood laga sameeyay
lixda xaafad lacag bixinay bisha bixinay anoo bixinay qof kasta uu bixinay lacagta waa la isu keenay qof baa la siinaa haddana safarka dambe qof baa la siinaa maalinba qof baa la siinaa lacagta ururtay oo lacag badan ah maalinba qof la siinaa saa darteed qof waxbuu ku qabsanaya 10 sano oo dagaal ah amni la'aan qalqal deegaan iyo adeegsiga baasan ee falalka dhaqanka ee waxyeeleeya ayaa waxa ay haweenka geliyeen khatar ku aadan xadgudubka ku salaysan jinsiga ee gudaha Soomaaliya tani waxa ay gaar ahaan toos u taabanaysaa dadka gudaha ku barakacay kuwaas oo khatar ugu jira xadgudubka ku salaysan jinsiga iyo dhigmirashada jinsiga amniga xadidan awgii si kastaba ha ahaatee 5 sano ee u dambeysay ayaa waxaa qaybaha arrimaha bulshada iyo qaybta jinsiga ee AMISOM waxa ay kor u qaadeen barnaamijyada xasilinta iyo tababaro taasoo falalkan waxyeelada leh u arka in la ciqaabo AMISOM ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ku wareejiyeen hub ay ka qabsadeen al-shabaab hubkan ayaa waxa uu isugu jiray qoryaha baasuukaha bambaanooyin dabajeexyo iyo qoryaha caadiga ah hubkan ayaa lagu soo qabqabtay howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM madaxa AMISOM danjire Francisco Madiera ayaa si rasmi ah hubkan ugu wareejiyay mas'uuliyiin ka socda dalka Soomaaliya danjire Madiera ayaa sheegay in wareejinta AMISOM ay tahay mid waafaqsan habraacyada qaramada midoobay ee la xiriira maareynta hubka fudud iyo kuwa yaryar golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku amrayaa AMISOM inay la shaqeyso mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah si loo hubiyo nabadda loona helo maamul waxtar leh iyo in la maareeyo hubka gacanta lagu soo dhigay waxaa la soo bandhigay hubab kala duwan oo qayb ka ahaa baqaar weyn oo lagu qabtay hubka fudud kaas oo lagu wareejinayo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya This is just a symbolic handover. We got stores which the Somali authorities will access and see and eventually ship them to where they are supposed to be kept. taliyaha ciidamada AMISOM Tigaabu Yilma ayaa waxa uu sheegay in ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku guda jiraan soo gudbinta hanaanka lagu wareejinayo hubka la qabtay Recently we have had some arms and ammunition recovered in Sector 1, especially Lower Shabelle and Sector 2. And the process for their handover is ongoing. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa amaanay iskaashiga u dhaxeeya AMISOM iyo ciidamada amniga ee Soomaaliya taasoo uu sheegay inay suurto gelisay guulaha laga gaaray howlgalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab Al-Shabaab has evolved and the fight today is much more sophisticated through IEDs, through instilling fear, through raising or broadening their extortion base. taliyaha guutada 12aad ee ciidamada dalka Uganda Richard Ota ayaa xusay in hubka gacanta lagu soo dhigay ee al-shabaab laga soo qabsaday uu yahay guul la taaban karo oo laga gaaray howlgallada wadajirka ah ee lagu weeqayo kooxda al-shabaab Al-Shabaab still remains a threat to the defenseless population, especially those who are in areas not controlled by the AMISOM and the government security forces. marka insha Allah duu ilaa raal noqdo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa soo gabagabeeyay tababar hal toddobaad socday oo kor loogu qaadayo xirfadda booliska Soomaaliyeed ee ka hortagga dambiyada iyada oo loo marayo boolisaynta bulshada tababarkan oo lagu qabtay akademiyada booliska ee General Kaahiye ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 25 sarkaal oo booliska Soomaaliyeed Community policing as a concept it bridges the gap between the police and the community. It will go a long way to enhance the police and the community engagements, reorganizations, and together they will be able to combat crime in the communities.
agaasime xigeenka qorsheynta iyo tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Maxamed Maxamuud Maxamed ayaa ka codsaday xubnaha ka qayb galay tababarku inay dhaqan geliyaan aqoonta ay heleen si ay u ilaaliyaan nolosha shacabka iyo hantidoodaba. mas-uuliyadda annaga na saaran aad bay u adag tahay waxaan ugula aaminay wax alla wixii dalkan sharaf u lahaay booliiska lagu aaminay wax alla wuxuu dalkan sharaf lahaay booliiska lagu aaminay diintiisa booliiska lagu aaminay dadkiisa booliiska lagu aaminay caradiisa booliiska lagu aaminay wax alla wixii resources ku lahaay booliiska lagu aaminay maadaama wax kasta lagu aaminay booliiska waa inaan u ekaano waxaan qabaa in damiirkeenna uu noolaado oo si wanaagsan oo sharaf leh aan u shaqeyno aan wada qaadano qof iyo koox wax ma qaban karaane annaga dhan inaan boorka ka jafno oon kor aan u qaadno waxaan ku kasban karnaa booliiskeenna shacabkeenna waxaan ku kasban karnaa inaan annaga aan honest ka nahay wax walbaba aan daacad ka nahay sidii horumar loo gaari lahay mawduucyada lagu qaatay tababarkan ayaa waxaa ka mid ahaa istaraatiijiyadaha booliseynta bulshada jaangoynta shaqo ee booliska Soomaaliya halbeegyada xirfadeed iyo xeerka anshaxa baabiinta xagjirnimada iyo ka hortagga falalka xunxun la falgelidda bulshada ilaalinta qaybaha nugul iyo arrimaha la xiriira jinsiga ee quseeya booliseynta bulshada. Sagal Cabdinuur Axmed oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in tababarkan ay ka heleen aqoon wax ku ool ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay booliseynta bulshadu. waxaan ka faa'iideysanay number 1 in isdhexgalka bulshada in aan bulshadeena annaga boolis ahaan waajib naga saaran yahay oo soo jiidano oo bulshadeena dhaqan wanaagsan kula dhaqanno mid kale hadaa ku sheegana waxaan inaan ka hortagno kooxooyinka xagjirada ah oo aan sida al-shabaab oo kale aan ka ilaalino caruurta annaga dhalnay xagjirnimada labo in oo maxaa la sheeg aan annaga iyo shacabka aan mideyno nabadna aan raadino. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa ku maamusay 32 sarkaal kaalinta ay ka geysteen soo celinta nabadda iyo amniga Soomaaliya. Saraakiishan oo ka kala socday wadamada Ghana, Nigeria, Uganda iyo Zambia ayaa dhamaystay hal sano oo ay ku shaqeynayeen howlgalka AMISOM ee gudaha Soomaaliya waxaana ay hadda dib ugu noqonayaan dalalkoodii. taliyaha booliska AMISOM Augustine Kaila ayaa kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa uu bilada u xiray saraakiishani. Augustine Kaila ayaa waxa uu saraakiisha ku amaanay doorka ay ka soo qaateen xasilinta Soomaaliya iyo awoodsiinta qaybta booliska ee AMISOM. waxa uu sheegay in waajibaadka saraakiishan uu yahay tababarka la talinta iyo talasiinta ciidanka booliska Soomaaliyeed. Some of them will be going for peacekeeping missions. In other peacekeeping missions in Africa or Europe, they will be the best peacekeepers because they have witnessed it, they have felt it, they have associated with various IPOs. So we wish them well. Inshallah, they will have peace. And when they have peace, they will be the preachers of peace. madaxa shaqaalaha booliska AMISOM ahna ku-xigeenka taliyaha booliska Rex Dundon ayaa waxqabadka 32 sarkaal ku sheegay inuu yahay mid khaas ah oo aan wax loo dhigay jirin isla markaana aan laga soo helaynin dhammaan cutubyada kala duwan ee ciidanka. We've had some very distinguished officers, very distinguished officers, which I'm proud to say can hold their own at the highest level of policing internationally. We've had IPOs that have been saddled with the responsibility of coordinating and commanding a whole state. By any standard, by any policing standard, that duty belongs to a professional category. And these officers, they performed exceptionally well. kaaliyaha taliyaha booliska ee AMISOM oo ka socda dalka Nigeria ayaa isaguna waxa uu dadka Soomaaliyeed uga mahad celiyay wada shaqeyntooda. The Somali people themselves have been wonderful, sir.
different people, different culture, different environment and tradition. But I must say that they are very receptive, very welcoming, very generous people. qorshaha kala guurka ee Soomaaliya waxa uu 3 sano ee soo socota ka mid ahaan doona wareejinta xilka amniga oo si tartiib ah AMISOM ay ugu wareejinayso ciidamada qaranka ee Soomaaliya.